kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkan waa National TV qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo qorshe dhabar jabin la damacsan murashaxiinta la tartamaysa kadib markii uu qaaday talaabooyin muujinaya in mar kale dib loogu dooran doono madaxweynaha Soomaaliya oo si lama filaana ugu biirtay dagaalka ka socday Ukraine iyo Ruushka xilli ra'iisul wasaare Roble uu cambaareeyay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine wararkeena kalena waxa kamid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo heegan qaas ah geliyay gantaalada nuclear-ka isaga oo amarkii ugu dambeeyay siiyay wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha militariga Ruushka wararkii ugu dambeeyay qorshe uu damacsan yahay Putin ayaad warkeena ku daawan doontaan sidoo kale waxaan eegi doonaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo galay maalintii shanaad iyo qasaaro xoog leh oo la soo warinayo wadamada reer galbeedka oo qaaday tallaabadii ugu ciqaabta adkayd ee uu Vladimir Putin ka baqayay haddaba maxay tahay tallaabadaasi warar ayaan idinkaga hayaa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa Isniin 28 Febraayo sanadka 2022 fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka si wararkaana halkan soo dhigno aad u hesho haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi waa hagaag mar kale kulan wacan aan ku bilaabo warkeena madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dabino hor leh la damacsan siyaasiyiinta murashaxiinta u ah madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan isa soo taagay taasi oo xogo hoose laga ogaaday waxa socda qorshe ah sidii loo qaban lahaa kulan ay isugu imaanayaan madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaanada qaar ee dooran balse aan loo dhaarin baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay kulankaasi waa in lagu sharjabiyo laba Shariif laba Xasan Daahir Geelle Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo murashaxiinta kale Mahdi Guuleed Qadar oo qudhiisa xildhibaan dooran u ah golaha shacabka ayaa loo xil saaray isku keenida konton mudane oo ka tirsan aqalka sare iyo golaha shacabka kuwada ka soo jeeda gobolada waqooyi ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo waayihii dambe saacadiisa inay u wareegatay loo maleynayay dhinaca Roble ayaa mar kale isa soo muujin doona isagoo la safan doona madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa xildhibaanada gobolada waqooyi ka soo jeeda waxaa hoggaan u ah oo lagala soo xiriiraya codkooda Mahdi Guuleed waana mid ka mid ah shakhsiyaadka udubdhaxaadka u ah doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal iyo tan madaxweynaha Soomaaliya hore Guuleed waxa uu sheegay wareega koobaad in lagu kala adkaan doono doorashada madaxweynaha Soomaaliya inkastoo markii dambe uu ka laabtay culeysyo badan la saaray awgeeda madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa ku tashan kara 50 xildhibaan oo gobolada waqooyi 50 kale oo ay ka heli karaan koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug ka imaan kara 100 xildhibaan toos ah ayay xisaab ahaan isku dhufsadeen taasi oo ka dhigan in mar kale uu xukunka ku soo laaban karo waa haddii aysan ku dhicin siriqdii Xasan Sheekh Maxamuud lagu sameeyay 2017 markii habeenkii doorashada dhaceysay ka hor 100 xildhibaan ka badan uu hoteelka SYL ku shiriyay balanqaad u sameeyeen balse balanta uga baxeen markii hoolka doorashada la gaaray macadda cidda calfan karta doorashada Soomaaliya madaxweynaha cusub haddana waxaa la saadaalin karaa in nabad iyo nolol ay siyaasad aragti fog ciyaarayso iyadoo meesha laga saari karin in ay jiri karaan dhul seexasho ay sameyn karaan xubno ka agdhow madaxweyne Farmaajo dibna kaga bixi kara qorshaha la isku oga siyaasadda hore ayaa loo yiri malaha saaxiib joogto ah balse waxay leedahay dan joogto ah taasi oo ka dhigan in qofkii jeebka buuran uu guusha u dhow yahay markasta waayahay markan haddaan eegno dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka socda gantaalada nooca loo yaqaano Iskander oo laga riday Belarus ayaa lagu weeraray Ukraine sida uu sheegay la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine weerarkan ayaa yimid kadib markii xafiiska madaxweyne Zelensky uu ku dhawaaqay in saraakiil ka kala socday Ukraine iyo Ruushka ay ku kulmayaan xadka ay wadaagaan Ukraine iyo Belarus si ay u wada hadlaan inkastoo aysan sheegin waqtiga la isku imaanayo gantaalada Iskander ayaa Ukraine looga soo tuuray dhanka Mozair ayuu soo qoray tani micnaheedu waa in ay geeri keeneen bayaan laga soo saaray Ukraine goorsi horeysay ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko uu qaaday mas'uuliyadda xaqiijinta in dhammaan diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca
iyo gantaalada yaala gudaha Belarus aysan dhulka ka kicin inta ay ergada reer Ukraine safarka ku jiraan oo wada hadal ku socod iyo inta ay markaasi ka laabanayaanba. dhinaca kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku amray taliska militariga Ruushka in ay heegan qaas ah geliyaan hubka nuclearka iyo qalabka la xiriira waana heegankii ugu sareeyay ee la geliyo istiraatiijiyadda gantaalada ee Ruushka. isagoo la hadlayay madaxda sare ee militariga oo uu ku jiro wasiirka gaashaandhiga Sergio Shoigu ayuu Putin sheegay in dalalka reer galbeedku ay sameeyeen ficilo aan saaxiibtinimo lahayn oo ka dhana Ruushka ayna ku soo rogeen cunaqabatayno sharci darro ah. mar dhow waan idinkula xisaabtami doonaa tallaabada aad qaadeen ayuu yiri Vladimir Putin. Mareykanka ayaa hadalka Putin ee ku saabsan nuclearka ku tilmaamay mid aan gebi ahaanba la aqbali karin. waxaa laga cabsi qabaa in dagaalka saddexaad ee adduunka uu qarxo iyadoo Ruushka uu markan doonayo in wadamada kale ee Yurub ama reer galbeedka uu markan iska dhiciyo. sidoo kale Ruushka markii ugu horeysay waxay sheegtay in qasaare uu ka soo gaaray dagaalka ay ku gashay Ukraine. wasaaradda gaashaandhiga Ruushka waxay markii ugu horeysay qiratay qasaare hase yeeshee ma aysan markaasi cayimin wax tiro ah. waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray militariga Ruushka intii uu socday howlgalka qaaska ah ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay ka soo saartay magaalada Moscow sida ay tabisay wakaaladda wararka ee TASS. qasaaraha soo gaaray ciidanka Ruushka waxa uu dhowr jeer ka yar yahay tirada qasaaraha ee gaaray kuwa qarandoonka ah ee la burburiyay ayay ku tiri bayaanka. weli dagaalka waa uu socdaa. wixii ku soo kordha wararkeena soo socda ayaad ku daawan doontaan insha Allah. qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan. fadlan subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub ayaa qaaday tallaabadii ugu adkayd ee dhaqaale ahaan loo ciqaabayo Ruushka ayagoo soo saaray liis cusub oo xayiraada ah. hase yeeshee tallaabooyinkan la qaaday ayaa waxa ugu weyn in bankiyo badan oo Ruush ah laga saaray nidaamka SWIFT ee isku xira bangiyada caalamka taasi oo Ruushka ka go'doominaysa dunida inteeda kale maaliyad ahaan. waxay sidoo kale wiiqeen awoodda bangiga dhexe ee Ruushka uu u leeyahay inuu xoojiyo lacagta dalkaasi ee loo yaqaano rubal taasi oo sarkaal sare oo Mareykan ah uu sheegay in qiimaheeda uu dhulka ku hooban doono. reer galbeedka ayaa sidoo kale ka digay inay ugaarsan doonaan doomaha diyaaradaha baabuurta guryaha raaxada iyo hantida kale ee ay ganacsatada shidaalka ka taajiray ee Ruushka ku leeyihiin caalamka. in Ruushka laga saaro nidaamka SWIFT waa tallaabadii ugu adkayd ee madaxweyne Vladimir Putin uu ka baqayay isaga oo horey u sheegay inay la macno tahay dagaal lagu iclaamiyay Ruushka. talaabadan ayaa waxaa taageeray Mareykanka, Canada, Midowga Yurub, Britain, Faransa, Jarmalka iyo Itaaliya. waxaa sidoo kale ku soo biiray dalal uu ka mid yahay Japan. saameynta ayaa durba laga dareemaya Ruushka ayadoo lacagta dalkaasi uu qiimaheeda hoos u dhacay. sidoo kale sicir barar degdeg ah la dareemay halka qof kasta isku dayayo inuu lacagtiisa u bedesho dollar ama euro. bayaan ay soo saareen ayay reer galbeedka ku sheegeen inay ka go'an tahay inay xayiraado cusub soo rogaan taasi oo burburin doonta dhaqaalaha Ruushka. arrintan waxay imaanaysaa ayadoo dagaalka Ukraine si xoogeysanayo xilli ciidamada dalkaasi ay muujinayaan adkaysi iyo difaac adag. weli waxaad daawanaysaan wararka National TV si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. fadlan subscribe saar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. goordhow wararkeena kale ayaan eegi doonaa hase ahaatee qadar yar. warar noocee ah ayaa doonaysaa? ma wararkii ugu dambeeyay? ma dhacdooyinka kaa yaabiya? mise kuwa ku dhiirigeliya? ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda? hadday jawaabtaadu haa tahay National TV ka dhiga wehelkaaga. booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV. subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga. markasta nagala soco National TV waxaad heli doontaa warar sugan oo xaqiiqo ah. Ukraine haddaan ku laabanno, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xayiran dalka uu dagaalka ka socda ee Ukraine
oo weli ka socdo dagaal u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xayiran dalkaasi ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in maalinba maalinta ka dambaysa ay xaaladdu ka sii darayso isla markaana uu dagaalka aad u xoogan yahay. Cabdiqani Mayo Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda ku sugan caasimadda Ukraine ee Kiev. Waraysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay in hadda xaaladdu ku adag tahay. Wiilkan oo tahriib ku galay dalka Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 2 jeer uu ku guuldareystay inuu ka baxo dalkaasi, sidoo kalena in ka badan 2 sano uu markaa ku xirnaa xabsiyada dalka Ukraine kadib markii laga soo qabtay xuduudda. Cabdiqani ayaa sidoo kale sheegay in iyagoo Soomaali badan ah ay hadda ku xayiran yihiin caasimadda Kiev oo bandoo lagu soo rogay, isla markaana ay qorsheynayaan in wixii biri ka dambeeya ay isaga baxaan dalkaasi markii bandowga laga qaado caasimadda oo dagaalku ugu xoogan uu ka socdo hadda. Sida ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda Britain Liz Truss, dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa sii xoogeysanaya, waxayna saadaalisay in dagaalkan uu sii socon karo sanado badan. Dhinaca kale, Soomaaliya ayaa si lama filaan ah qayb uga noqotay ama ugu biirtay dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan xafiiskiisa kula qaatay safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Tina Intelman, ayaga oo ka wada hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan doorashooyinka, amniga iyo abaaraha ka jira dalka. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Roble, ra'iisul wasaaraha ayaa siiyay safiirka xaqiijin ku saabsan doorashada lagu soo gabagabeyn doono waqtiga cusub ee loo qabtay oo 15 Maarso. Dhanka kale, kulanka ra'iisul wasaare Roble iyo safiirada ayaa isku soo hadal qaaday taageerada Midowga Yurub ay ka geysanayaan gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay, iyadoo safiirku sheegtay in Midowga Yurub ay 41 milyan oo dollar u qoondeeyeen gurmadka abaaraha ka jira dalka, ayna taageerayaan dadaalada ra'iisul wasaaruhu hormuudka ka yahay ee socda. Kulanka ra'iisul wasaare Roble iyo safiirka Midowga Yurub ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda colaadeed ee ka dhalatay dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine iyo saameynta ay ku yeelan karto Yurub iyo guud ahaan dunida. Ra'iisul wasaaraha ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay xaaladdaas colaadeed, isagoo ku baaqay in wada hadal lagu dhameeyo colaadda taagan. Tani ayay dad badan ku tilmaameen in Soomaaliya ay qayb ka noqotay ama ay ku biirtay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Gabagabada wararkeena ayaan daawadayaal joognaa. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulan uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la qaatay gudoomiyaha arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Villa Soomaaliya, kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray wada shaqaynta Soomaaliya iyo Midowga Afrika, dagaalka ka dhanka ah argagixisada, mustaqbalka waajibaadka shaqo ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladaha amni iyo horumar ee gobolka. Qoraalka ayaa sidan u qornaa: madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika Danjire Bankole Adeoye. Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta Soomaaliya iyo Midowga Afrika, dagaalka ka dhanka ah argagixisada, mustaqbalka waajibaadka shaqo ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladaha amni iyo horumar ee gobolka. Gudoomiyaha arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika Danjire Bankole oo uu weheliyay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madera ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee loo fidiyay, isagoo bogaadiyay horumarka dawladda Soomaaliya ay ka gaartay geedi socodka arrimaha doorashooyinka, amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada. Kulankan waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Maxamuud Cabdi Xasan, agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cabdullaahi Ciise iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ee xiriirka la leh arrimaha howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteena YouTube-ka ee National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. inta ku kulmeeno wararkeena soo socda, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.